howlgal ay sameeyeen ciidamo ka tirsan booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen aabihii dilay wiilkiisa. Howlgalka ayaa waxay ciidanku ka sameeyeen xaafadda oo dilka ka dhacay ee magaalada Jowhar. Taliyaha saldhigga booliiska degmada Jowhar oo warbaahinta kula hadlay gudaha saldhigga booliiska degmada Jowhar ayaa faahfaahin dheeraad ah waxa uu ka bixiyay sida ay gacanta ugu soo dhacaan gudhiglahan dilay wiilkiisa. waa kan taliyaha oo arrimahaas ka hadlaya. maanta shirkani jira wuxuu ku saabsan yahay dhacdo shalay galab maqribadii ka dhacday magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed. marka waxa dhacday aabba ayaa wiilkiisii ku dilay xalay maqribadii xilliga 12 saac ilaa maqribada u dhaxayso. alxamdulillah ilaahay qadartiisa meeshka waa tagnay ciidamada booliiska meeshii tagana ku baxeen dhibkii meesha ka dhacay ay arkeen kadibna waxay daba galeen ninkii maarta dhibka geystay oo aabbo u ahay wiilka oo dhala dilay. saadarteed waxay noo soo gashay xalad 10 saac bar inaan ka soo qabanno tuulada Halgan. sidaa darteed maanta wuxuu ku xiran yahay saldhigga booliiska degmada Jowhar. booliiska ayaana gacanta ku hayo wixii faahfaahin oo dambe oo maarta sheeg maxay ahayd aan kala kulana ama baarisiisa ka soo baxnay dib ayaan u wadaagi doonaa warbaahinta doolaha insha Allah. dibka sababaha dhaliyay hadda baarisiga ku jirta arintii ninkiin dhib ka geystay uu xiran yahay maaragtay booliisku wana mana ka hor dhici karno barkay qofku waxa macquul xataa ninku inuu maalna kariyo ama markaas ay xaaladiisu isra caadihin ama beledkan waad ogtaa mukhadaraadkiisa badan mukhadaraad inuu cadaab suuragal laakiin arrintiisu baarisiga ku jirta doolaha insha Allah. marka jawaabta ugu dambeysana waxaan la qaybsan doonaa maxkamadda ay khusayso iyo maaragtay saxaafadda. dhacdadan ka dhacday magaalada Jowhar ayaa hadalheynteeda waxa ay ka socotaa qaar ka mid ah baraha bulshada iyo waliba qaybo ka mid ah magaalada Jowhar ee uu ka dhacay dilkan.